أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو البغدادي المعروف بالصاعقة قال أخبرنا زكريا بن عدي الكوفي قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي عن حيوة وحيوة بن شريح وكان مجاب الدعوة المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير ومرثد بن عبد الله المصري عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد رسولك إلهي وحuu u duceeyey dagaalkii Uxud dadkii lagu dilay ayuu u duceeyey salaadan Imaam Shaafici wuxuu ku fasiray waa salaad luqawiya bimacna ducaa waa u duceeyey ama Abi Xaniifa isagu wuxuu ku fasiray madhabta Xanafiyadu ay qabaan yani waa lagu tukan karaa dadka shuhadada ah marka xaqiiqadooda iyagu u fasireen oo salaad xaqiiqo ah qaala salla rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu alayhi wasallam wuxuu u duceeyey calaa qatli Uxud bacda 8 siniina 8 sano ka bacdi culimadu waxay leeyihiin sida xaqiiqada waa 7 sano ka bacdi laana dagaalka Uxud wuxuu ahaa sanadkii saddexaad ee taariikhda hijriga markuu nabigu dardaarmayay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku geeriyooday sanadkii 10aad marka 7 sano ka soo baxays inta waa sidoo u dhaxayso marka bacda 8 siniin waa 7 sano 7 sano loo jeedaa yani 7 sano ka bacdi inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u duceeyay qoladii Uxud lagu dilay وذلك المودع mid sagootinaya kala weeyo lil axyaay dadka nool iyo wal amwaati dadka dhintay labadaba wuxuu u muuqday inuu sagootinayay nabigu sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi thumma tala'a al minbarkii koray rasuulku sallallahu alayhi wasallam faqala rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in anugu bayna aydiikum hortiina faradun ceelalyo ayaan hortiina hayo waxaan idin sii diyaarinaa way xawdkii sida qofka maaragtaa yani geela shubayo oo kale uu u sii diyaariyo geelu darkii uu ka cabi lahaa geelu darkuu ka cabi lahaa ceelka u sii hormaro saasoo kalean idinkaga sii hormaray xawdkii ayuu ula jeedaa nabigu sala allahu alay wasalam wa ana calaykum shahiid dushiinaana ku markhaati furi doonaa wa ina mawcidakum ballankiinuna wuxuu yahay waxaa noo ballana alxawdu xawdkaasaa noo ballana uu yihi nabigu sala allahu alay wasalam nasal allahu tacala an yasqiyana min xawdihi alkariim sharbatan haniyatan laa nadma'u bacdaha abadan wa inii anigu la anduru ilayhi xawdkaanba fiirinaa waan u jeedaa min maqaamkaygan ka fiirinaa haadaa oo kan ah halkan aan taaganahay ayaan uga jeedaaba xawdkaygii yiri nabigu sala allahu alayh wasalam wa inii anigu lastu ma ihi akhshaa calaykum dushiina inaan uga baqayo an tushriku ilaahay inaad wax la wadaajisaan ma idinkaga baqayo walaakinii akhshaa calaykum addunya an tanaafasuuha adduunyaan idinkaga baqi inaad ku loolantaan oo adduunya ay halaagto qaala cuqba wuxuu yidhi saxaabigii fakaanat nadradaas fiiradaas aan rasuulka fiiriyey sala allahu alayh wasalam aakhira nadratin fiiradii ugu dambeysay ayay ahayd nadradaasoo nadartuhaa fiiradaas aan fiiriyey ilaa rasuulillaahi aan fiiriyey sala allahu alayh wasalam markii ugu dambeysay oo nabiga aan fiiriyo markaasay ahayd waa xadiiskaa nabigu sala allahu alay wasalam nagula dardaarmayo qaala alimaam albukhaari raximah llahu tacala xadathana cubaydullah ibn muusa huwa alkuufi can israa'iil waa israa'iil ibnu yunus waa awlaadi abi isxaaq isabiici can abi isxaaq waa camru bni cabdillaahi bukhaariga in badan uu ku soo laalaabtay abi isxaaq waana hadda min rijaali ljamaaca kutubu sitoo dhan uba ku jiraaba kutubu sitoo dhanba ummahaatu sitoo dhan ayaa wax ka wariyey sheekhan abi isxaaq isabiic magaciisa waxaa la dhihi jiray camru bni cabdillaahi bni caliyin alkuufi camar ayaa la dhihi jiray camar ibnu cabdillaahi bni caliyin alkuufi wa kaana yakhtimu fii kulli 3 ayaam 3 maalmood gudahooduu qur-aanka ku dhammayn jiray marka wardigiisa raatibkaaba wuxuu ahaa 10 juz inuu fii kulli yowmin uu akhristo caabid uu ahaa hiqa abi isxaaq isabiici waxaa kaloo cibaadadaas haddana kula jiray hadduu wuxuu la dagaalami jiray qolada roomaanka nasaarada qolada roomaankana uu la dagaalami jiray oo jihaadkana sheekhu aad u jeclaa dowladii iyo xukuumadii mucaawiyata bin abi sufyaan uu hogaaminayay xilligii khilaafadii dowladdii uu hogaaminayay mucaawiyata bin abi sufyaan xilligaasuu jihaadka aadi jiray xilligaasuu noolaa sheekhan abi isxaaq asabiici marka dowladdii mucaawiyata bin abi sufyaan kama hari jirin jihaadka marka loo baxayo oo roomaanka marka lala dagaalami jiray roomaanka isaguna dagaalkii safka hore uga jiri jiray abi isxaaq asabiici waana min rijaali ljamaaca rijaalu jamaca ku jira ummahaatu sitoo dhan ayaa wax ka wariyeen wuxuu sheekhu geeriyooday 127 taariikha hijrigu mucamarna waa ahaa cumri dheera ilaahay siiyey 95 sano
ayuu cumri ahaan uu gaaray sheekha mar la weydiiyey oo la yidhi sheekhu xaaladaada ka warran markaad gabowday wuxuu yidhi waxaan la mid ahaa qof shalal ku dhacay oo kaleo bimacnaa maa taxmilu rijlaaya labadeeda lugood awood uma laha inay xambaaraan buu yidhi labada lugood awood inay qaadaan way waayeen waayeelnimadu ka hadli yacni da-an gaaray marka qof yacni xibnihiisii waayey oo kale ayaa noqday yidhi da awgeed oo labadeeda lugood ima xambaari karaan oo ima celin karaan saasuu dhihi jiray akhuuru cumrigiisa abi isxaaq asabiici can abi isxaaq asabiici can ilbaraa qaala wuxuu yihi baraa laqiina almushrikiina gaaladii ayaan la kulannay yowmaidin maalintaas dagaalka uxud uu dhacayay wa ajlasa nebiyu nabigu wuxuu fariisiiyey sala allahu alay wasalam jeyshan ciidankaasoo min arumaati shiishyahanada ka mid a dadka fallaaraha aad u yaqaano fallaaraha ku dagaalamo shiishyahanada ah ayuu meel buura uu fariisiiyey nabigu salى الlahu عalيه wasalam waamara calayhim nimankaa rumaadaana nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu amiir uga dhigay cabdullahi amiir uga dhigay oo cabdullahi ibnu jubayr oo qisada hore aanu soo qaadanay cabdullahi jubayr saxaabiga la dhihi jiray saxaabigaasuu nimankii shiishiyahanada ahaa uu nabigu salى الlahu عalيه wasalam madax uga dhigay wa qaala rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yihi laa tabraxuu ha ka zuulinina halkan in ra'aytumunaa haddaadna aragtaan daharnaa inaan ka adkaanay calayhim cadowgii gaalada falaa tabraxuu halkana ka zuulinina wain ra'aytumuuhum cadowgii haddaad aragtaan daharuu xaalay adkaadeen calayna annaga ay noga adkaadeenna falaa tuciinuuna hanoo kaalmaynina labada xaalaba meeshana ka dhaqaanayna haddii xataa annaga nala jebiyo meeshana ka dhaqaanayna haddaan annagu wax jebinnana halkana ka dhaqaanayna saasuu kula dardaarmay nabigu salى الlahu عalيه wasalam falamaa laqinaa markaan la kulannay cadowgii ayuu yihi saxaabigii harabuu gaaladii cadowga ah waa carareen xataa ra'aytu nisaa ilaa dumarkii gaalada aan ka arkayey yashtadidna xaalay ordayaan fi ljabali buurtii ay kusii ordayaan buurihii ay sii tafayaan dumarkii yarfacana xaalay kor u qaadayaan can suuqihinna shanshayaalkoodii ay marada kor uga qaadaan maradii intay faydeen oo shanshooyinkoodii la arkayo sii cararayaan ayaan arkayu yidhi saxaabigan baraa qad badad xaalay muuqatay khalaakhiluhunna dahabyaalkoodii dahabkii lugaha ay ku wateen dahabyaalkoodii oo muuqday faakhaduu waxay guda galeen saxaabadii meesha buurta la saaray oo nabigu yidhi ha ka dhaqaaqinina halkan waxay guda galeen yaquuluuna inay yidhaahaan alghaniima alghaniima khudu lghaniima khudu lghaniima war haniimada aan doonano nimanka waa jabeene meesha aan ka baxno maxaana saaray buurta maxaana saaray buurta aan ka tagno qaala cabdullaahi wuxuu yihi waa saxaabigii amiirka looga dhigay cabdullahi ibnu jubayr waaye cabdullahi ibnu jubayr wuxuu yihi cahida ilaya nebiyu nabigu wuxuu ballan igula galay salى الlahu عalيه wasalam an laa tabraxuu inaadnaan meesha ka zuulin fa abow waa diideen warkiisii waa ka diideen falamaa abow markay diideen surifa wujuuhum wejiyadoodii oo dhanba saxaabadii waa la leexiyey markii warkii khilaafeen nabiga salى الlahu عalيه wasalam wejiyadoodii waa la leexiyey ulajeedada laga leeyahay waxaa weye bimacnaa taxayaruu falam yadruu ayna yadhabuun taxayaruu falam yadruu ayna yadhabuun jahwareeraaba ku dhacayo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan way garan waayeenoo waa ku jahwareereen dagaalkii shu-uuntiisii macrakadii ku jahwareereenba markay khilaafeen dardaarankii nabigeena salى الlahu wasalam wbaaraka caleyh fausiiba waxaa la dilay 70 oo qatiilan min qatiilin ruux la dilay 70 meeshii la dhigay oo saxaabada nabiga ka mid ah salى الlahu عalيه wasalam wa ashrafa waxaa soo milicsaday abu sufyaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi intuu buur dusheedii istaagay afil qowmi maxamed ma ku dhex jiraa nabigu ula jeedaa salى الlahu wasalam wbaaraka caleyh qaala rasuulku salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yihi laa tujiibu ha u jawaabinina ka aamusa faqaala markaasuu abu sufyaan wuxuu yihi afil qowmi ibnu abi quxaafa ma ku jiraa sayidina abubakar ula jeedaa qaala laa tujiibuuhu ha u jawaabin inuu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam faqaala wuxuu yihi markaas kaafirkii abu sufyaan xilligaas gaal u ahaaye wuxuu yihi afil qowmi ibnu اlkhadaab ma ku jiraa sayidina cumar ibnu khadaab faqaala markaas asagaa isku jawaabay kaafirkii wuxuu yihi abu sufyaan ina haaulaa'i qutiluu yihi markii laga aamusay asagaa isku jawaabay wuxuu yihi war kuwan waa la dilo yihi bisow mar haddaysan hadlayn wax jawaabay aysan jirin waa la dilo yihi falow kaanuu axyaa la ajaabu hadday noolaan lahaayeen waa ii jawaabi lahaayeen falam yamliku cumaru cumar ma uusan milkin nafsahu naftiisii sayidina cumar waa iscelin waayey faqaala wuxuu yihi kadabta yaa caduw allah cadow ilaahay beenaad sheegtay abqa allaahu laka ilaahay wuxuu kuu reebay maa ayoladii kii yaxsunuka ku murug geli doona walla rag ku murug gelin doona oo balaayo kugu dhigi doona ilaahay waa kuu baaqi yeel saasuu yidhi qaala abu sufyaan wuxuu yidhi uclu hubal ucl kor noqo hubalu ya hubalu sanamkiisii wey waa caabudi jira sanamkan hubalow kor noqo saasuu yidhi faqaala nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yihi ajiibuuh markan u jawaabay caqiide iyo shu-uunteedii uu galaye ilaahay subxaanaه watacaala wax dhinac dhigaye ha loo jawaabuu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam qaaluu markaasi waxay yidhahan saxaabadii maa naquulu maxaan nidhaahaa qaala wuxuu rasuulku salى الlahu عalيه wasalam qowluu dhaha allahu aclىa waajal saas ugu jawaabuu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam ilaah wax walba ka sarreeya ilaah wax walba ka weyn saas ugu jawaaba qaala abu sufyaan wuxuu yihi lana alcuza walaa cuzaa lakum annagu cuzaan leenahay idinkuna cuzo ma lihin oo asnaamta ay caabudi jireen mid ka mid ah
sanam ciise la yidhahan lena idinku ciise ma lihidin yidhi faqaala nabigu sala allahu alay wasalam ajiibuuhu u jawaaba qaaluu saxaabadii waxay yidhaaheen maa naquulu maxaan idhaahaa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam quluu allahu mowlaana walaa mowlan lakum ilaah annaga mowlaheena noo hiilinay walaa mowlaa lakum wax adinka mowlaahu idin hiiliya adinku ma qabtaan dhagxaantaas laa taduru walaa tanfac ayaad ku lunteen qaala abu sufyaan wuxuu yidhi markaas yowmun biyowmi badrin hada midkani yowm waa yowm uxud yowmkaasoo muqaabalun la barbar dhigay biyowmi badrin labadii maalmood isla turi maad badr aad naga adkaateen annaguna maanta aan idinka adkaanay saasuu ula jeedaa labadana isbarbar dhigu leh walxarbu sijaal dagaalkuna waa kaltan watajiduuna waxaadna heli doontaan midlatan suurad xumayn waxaadna meydkiina ka heli doontaan meydkiina la suurad xumeeyo dhegihii iyo sankii iyo ka googooyeen saxaabadii markii meesha ku dileen gaaladii dhegihii iyo sankii iyo suuraddii xumeeyeen oo saxaabada meydkoodii watajiduuna waxaad heli doontaan midlatan suurad xumayno meydkiini waa la jarjaray oo yani sankii iyo dhegihii waa laga jarjaray miladaasoo wuxuu yidhi abu sufyaan lam aamur bihaa milada anugu aanan amrin walam tasu'ni mana i xumaynin haddii laysoo gaarsiiyey oo la yidhi mila la sameeyena kama aanan nixin laakiin anugu ma amrin waxaas anugu kama aanan dambeynoo ma amrin laakiin haddii laysoo gaarsiiyena kama aanan nixin uu yidhi yani wuxuu muujinaya inuu ku faraxsan yahay milada lagu sameeyey saxaabatu rasuuli illah sala allahu wasalam baaraka caleyh iyagana ilaaha ajirkoodii ku siyaadinaya dhibaatadaas loo geystay قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو شيخ عمرو بن دينار المكي عن جابر قال وحوري جابر اصطبح الخمر خمرده وحا كقراعدي يوم أحد maalintii uxud waxaa khamre ku quraacday naasun dad uma markaa kabacdi qutiluu dadkaa ku quraacday khamradii waa la dilay dagaalkii uxudaa lagu dilay shuhadaa xaalihiin iyagoo shuhada ah ayaa meeshii lagu dilay taasi waxay ku tusinaya khamradu xilligaa inay xalaal ahayd oo bacda uxud la xaaraam yeelay bacda ghaswati uxud ayaa la xaaraam yeelay maalin xilligaas xalaal ayay ahayd قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم أتي عبد الرحمن بن عوف بدعامنا اللوليم cuntaa loo keenay jidka ay ku abtirsanayeen awgoodiiba min alcasharati almubashiriin biljanna wa kaana saa'iman uu ahaa cabdiraxmaan ibn cawf marka cuntada loo keenay faqaala markaasu wuxuu yihi cabdiraxmaan ibn cawf qutila muscab ibnu cumayr saxaabiga la dhihi jiray waa la dilay dagaalkii uxud dadka lagu dilo ka mid ahaa muscab ibnu cumayr waa la dilay wa huwa muscab ibnu cumayrna khayrun minii waa iga khayr badnaa min baabi alhadmi waatawaaduc naftiisuu jebinaa iyo tawaaducu ula jeedaa mooye casharatu mubashiriin biljanna iyagaa ka khayr badan haddii muscab ibnu cumayr iyo saxaabada kale kayrkooda lama gaarayo asagoo casharaduu ku jiray cabdiraxmaan ka fadli badan cabdiraxmaan yani muscab ibn cumayr laakiin waa min baabi alhadmi linafsihi naftiisuu jebina min baabi tawaaducu qutila muscab ibn cumayr waa la dilay wa huwa khayru mina waana iga khayr badnaa kufina waxaa lagu karfanay fii burdatin maro in gudiya ra'suhu madaxiisa haddii la daboolo badat rijlaahu saxaabiga labadiisa lugooda muuqanay wa in gudiya rijlaahu labadiisa lugood haddii la daboolona bada ra'suhu madaxiisa muuqanay wa uraahu waxaan u malaynaa cabdiraxmaan ibnu cawf qaala inuu yidhi oo xadiiska uu ku daray waqutila xamzatu wahuwa khayru mini saas inuu xadiiska noogu darana u malayna xamza nabiga adeerkiisa wey sala allahu alيh wasalam xamzatu bn cabdilmuطalib isagana waa la dilay inuu hadalka noogu daray waan u malayna dagaalkii uxud dadkii lagu dilo ka mid ahaa wahuwa khayru mini uu yidhi waana iga khayr badnaa uma busida lana annaga waxaa naloo fidiyey u yidhi cabdiraxmaan min addunya xagga adduunyada maa shayaa nalo kaga fidiyey shaygaasoo busida la fidiyey aw qaala ama wuxuu yidhi cabdiraxmaan ucdiinaa min addunya addunyada xaggeeda waxaa nala ka siiyey maa shay shaygaasoo ucdiinaa nala ka siiyey addunya annaga nala ku farraqay yuri dadka naga khayr badnaana karfan ayaa la waayey lagu aaso dadka naga khayr badnaayo shuhadaa uxud karfan si dhammaystiran loogu aaso ayaa la waayey annagana waad u jeedaanoo adduunyadana nala ku farraqu yiri waqad khashinaa waxaan ka baqnay yuri an takuuna xasanaatuna xasanaadkeennu inay ahaadaan cujilat lana annaga midna loo soo dedejiyey waxaanba ka cabsan yuri adduunyada nala ku farraqay ajirkiinni aakhira noo jiri lahaa qayb ka mid ahoo nala soo hormariyey saasama ka baqayo uma jacala wuxuu gudagalay cabdiraxmaan yabki inuu iska ooyo xataa taraka dacaam ilaa dacaamki waa soomanaay cuntadii oo dhanba waa ka tegayo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد هو المسند الجعفي قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال الرجل ننا وحير للنبي نبي وحو كيري صلى الله وسلم وبارك عليه يوم أحد maalintii uxud ayaa nin nabigu wuxuu ku yidhi salى الlaه عليه wasalam ara'ayta ka waran rasuulka ilaahay in qutiltu haddii lay dilo fa ayna xaggee baa anigu aan ahaana haddii lay dilo xaggee aada qaala rasuulku salى الlaه عليه wasalam fi ljanna jannadaad aadi jannadaad ku dhex jira haddii lagu dilo faalqaa ninkii wuxuu riday oo uu soo tuuray tamaraatin dhowr timiruu soo tuuray tamaraadkaasoo fii yadihi gacantiisa ahdeen ninkii uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila hada min quwati yaqiinihi wa quwati iimaanihi
saxaabada yaqiintooda iyo iimaankooda aad u weyno fakaannamaa yarawna aljannata amaamahum waxaad moodaa jannadii inayba hortooda ka muuqataba xaq ahaan sida iimaankooda u weynaa wax walba oo aakhiro ah inay arkayaan oo hortooda jannadii taallo saas oo kale yaqiintaasay ilaahay ku caabudi jireen an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka maqaamkaas waxaa la yidhaha maqaamu lixsaan maqaamu alixsaan walyaqiin ayaa maqaamkaa la yidhaha maqaam weyn oo dadka uliyada ilahay uu ku manaysto markaad ilaahay caabudayso adigoo ilaahay u jeeda oo kale jannada markaad ku ducaysanayso adoo jannadii u jeeda oo kale ay noqonayso naarta markaad ilaahay ka magangelayso naarta adigoo arkaayo cabaadkii yeerayo ahlu naarkii cabaadkeeda iyadoo maqlayo oo kale qaabkaas oo kale muuqaalkaas oo kale inaad ilaahay u caabudo subxaanahu watacaala maqaamu alixsaan walyaqiin laakiin khaflo qofku inuu ilaahay ku caabudo waa ihaano iyo dulli weeye ihaano qofku khaflo inuu ilaahay ku caabudo adkaartii iska akhriyo qur-aankii iska akhriyo salaaddii iska tukado oo wuxuu akhrinayo wuxuu sheegayana uusanba kala ogeyn wuxuu akhrinayo iyo wuxuu sheegayaba uusan kala ogeyn قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله من باب النسبة إلى جده أحمد بن عبد الله بن يونس المصري قال حدثنا زهير شيخ الشيخ مرهدون نقض زهيركو وزهير بن معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل المعروف بأبي وائل الكوفي علماء الكوفيين عن خباب بن الأرت ممن عذب في الله إلهي درتي قالت وعقابهم قال هاجرنا هاجرني مع رسول الله رسولك الله معيس حالا نهي صلى الله وسلم وبارك عليه نبتغي حالا راتسنين وجه الله إلهي وجهيسان رادين فوجب أجرنا أجر كني وحو كل يعني كسقنادي على الله إلهي دوشيس إلهي أجر من باب التفضل لا من باب الوجوب على الله تفضل ونوغو سقنادي إلهي وحكو واجبه مجران إلهي وحكو واجبه مجران من باب التفضل ونوغو سقنادي أجر كني ومن أنا وحنا نقمد هاي من روح سو مضى اسكتغي وآخر آدي أو ذهب أمتغي لم يأكل حال وصنع من أجره شيئا دad waxaa tegey أجركودي waxba adduunyada aan ka cunino futuuxaadka islaamigaaba aan soo gaarin futuuxaadka islaamiga aan soo gaarin ka mid ah kaana minhum dadkaas dhintay oo adduunyada dhaldhalaalkeedaba aan soo gaarin waxaa ka mid ahaa Muscab ibn Umayr qutila waa la dilay yawm Uhud lam yatruk ilaa namirata hal go' maahana wax kale kama uusan tegin kuna waxaan ahaan jirnay idaa qadayna biha namirada haddaan ku daboolno ku asturno ra'sa madaxiisa kharajat rijlahu labadiisa lugood ayaa soo baxayeen وإذا غدي بها نمرده هدي لغو دبولو رجلاه لبديس لغود هدي لغو دبولنا خرج رأسه مدحيسا سو بخاي فقال لنا النبي وحو نوير صلى الله وسلم وبارك عليه قدوا بها نمرده كو دبولا رأسه مدحيسا كو دبولا وجعلوا يالا أو قال أما وحو النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا على رجليه من الإدخر لبديس لغود waxaad ku tuurtaan caws ku tuura yani caws yaala way labadiis lugood caws ku astro ومنها waxaa naga mid noqday man ruuxaas oo aynacati lahu thamaratuhu mirihiisa ay u bislaadeen fahuwa yahdibuha iska guranayo adduunyadiisii iska guranayo xilliga futuuxaadka soo gaarana waa naga mid قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حسان بن حسان المصري قوي ليس له في صحيح البخاري إلا حديثان لو حديث كتابك كله يا حسان قال حدثنا محمد بن ضلحة بن المصرف محمد بن ضلحة بن المصرف قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمه أنس أديركيس واسكو مقع أساق أديركيس اسكو مقع أساقنا أنس بن النضر أديركيس لله أنس بن النضر أن عمه أديركيس غاب أديركو حكم مقنادي عن بدر عن غزوة بدر يولانكي بدر وكم مقنادي أنس أديركيس فقال مركز أديركو حوري غبته وحن كم مقنادي عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم دقالكي أوه الرئي وقال أولا قالوا أيان كم مقنادي لأين أشهدني الله إلهي هدو حاضري مع النبي nabiga micigiisa sala allahu wasalam wabaarak caleyh xaal aan ahay ghaswatan ula jeeda anoo nabiga la socda duulaan kaleba haddii ilaahay ixaadiriyo la yarayanna allahu ilaahay arkee maa iladii kii ilaahay arkee ujiddu moodin dhiga meesha ujiddu oo in la godo hamsada la shidayo ujiddu bimacna almubaalaqa camalka saan ugu xeel dheeraado almubaalaqa إلهي وأركي دونا لا يرين الله إلهي أركي ما الذي في وجد أن كحيل ديرادو في الجهد ذلك السان وكحيل ديرادو ولا إلهي وأركي دونا دقالك الصوص على تان دقو إلهي وأركي دونا ولقي يوم أحد قالين أحد ولا كل غزوة أحد ولا كل هذا يركي أنس بن النضر فهزم الناس وضدك ولا الجبيه دقالك أحد فقال مركز أديرك وحور اللهم إلهي إني أعتذر إليك وحن حقا وعذر دارنا بما الذي صنع هؤلاء كون أي سميان يعني المسلمين إلى جدا وهزيمة يعرك كل عي مسلمين تي إله أذان كامل قالوا كان أعذر دارتي وأبرأ إليك حقا إلهي وحن نقبر النقنا بما الذي جاء به ما يسأل المشركون قالوا وحي لي مادين أو كفر إيو دقالك أي النبي قاديان صلى الله عليه وسلم عداوة النبي أيوقبان صلى الله عليه وسلم إله وكبر أهي وتقدم بسيفه تقدم وهرمري
bisayfihi seeftiisii uu la hormaro dhinay cadowgu aaday falaqiya wuxuu la kulmay adeerkii sacda bna mucaad wuu la kulmay saxaabiga ansaariga ah uu la kulmay faqaala markaasuu adeerku wuxuu yidhi ayna yaa sacdu xaggee u soctaa sacdow innii ajidu riixa aljannati duuna uxudin anugu caraftii jannada waxaanba ka heli jabalka uxud sokadiisa jabalka uxud sokadiisa caraftii jannada halkaanay iga dilaacday caraftii jannada halkay waa maqaamu lyaqiin walixsaan famadaa markaasuu tegey waa sii socday adeerkii faqutila waa la dilay daalkii lagu dilay famaa curifa lama garan adeerkii waa la garan waaye sida ay u googooyeen jirkiisi iyo xanuunkii yani jirka sida dhibaatada ka muuqata jirkiisii o dhan waa la fahmi waaye xataa carafatu ilaa adeerkii ay ka garatay ukhtuu walaashiisi bishaamatin bar jirkiisa ku tiilay walaashu ku garatay aw amase bar ma ahana bibanaanihi ama farihiisii ku garatay farihiisii ayay ku garatay wabihi waxaana ku sugnaa saxaabiga adeerka anas bnu nadrin bidcun wa hamaanuuna 82 min dacnatin wa darbatin wa ramyatin bisahmin isugu jira 82 kaasoo min dacnatin durid ah waran lagu duray wa darbatin garaacid ah wa ramyatin tuurid ah bisahmin gamun lagu tuuray marka wuxuu ka run sheegay hadalkiisii uu dhahayay layarayanna allaahu ma ajid lain ashhadanii allahu maca الnabiy salى اllahu عalيه wasalam layarayanna allaahu ma ujidudii ayuu ka run sheegay min almu'miniina rijaal صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا dadka ay ku soo degtay aayadaas غزوة الأحزاب آية الأحزاب dadka ay ku soo degtay kamid aha قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت على صحابي على خارجة أنه سمع زيد بن ثابت وأبيه أبيس مغل يقول حالو لي زيد بن ثابت فقدت وحان واي آية أيام واي آية من الأحزاب من سورة الأحزاب آيات كمدة أيام واي يسوون وحو كمدة من كتاب الوحي ذاتك وحي يا قرآن كقري جري أيو كمدة زيد بن ثابت فقدت وحان واي آية أيام واي آية من الأحزاب من سورة الأحزاب كمدة حين وقت أيام وايو نسخنا أن قريني مصحف كمر كان قريني هل آية وسورة الأحزاب كمدة aayaddaasoo kuntu aan ahaan jiray asmacu rasuul allahi rasuulka ilahi inaan maqlo sala allahu wasalam mubaaraka caleyh yaqra'u xaaluu akhrin jiray biha aayaddaas uu akhrin jiray nebigu sala allahu wasalam mubaaraka caleyh faltamasnaaha aayaddii aan raadinay fawajadnaaha aayaddii waxaan ka helnay maca khusaymata bni thaabitin alansaariy aayaddaas waxay ahayd min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu llaha calayhi faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وآياته كسو دقي صحابي هذا أنه كشيكيني وأنس بن نضر من المؤمنين مؤمنين وحاكم الرجال رجع كمل رجع صدقوا كرهن شيء ما أي الذي كرهن شيء عهد الله إلهي كلب اللمين عليه ما قاس إلهي كلب اللمين أوفيي فمنهم حاكم الرجال من روح قضى نحبه دنتيسي قتي والنذر كي وقال عهد يصير لما يستوي وسدا كل انتيو ومنهم حاكم من روح ينتظر السوق يا أسقنا دنتيسي حاجدي إنه ماشي كقتو وردها إلهي إنه قارو وسدا وكل انتي فالحقناها wuxuu saxaabigii aayaddii waxaan haleeshiinay fii suuratihaa booskeedii suuradda ay uga jirtay ayaan haleeshiinay fi lmusxafi musxafka dhexdiisii ayaan ku haleeshiinay uu yidhi marka aayaddu haddee khabarul aaxaaday ku sugnaatay la dhihi maayo oo hadda laguma duri karo alqur'aan laa yahbutu bilaaxaad qur-aanku aaxaad kuma sugnaadee see yacni loogu ictimaaday khusaymat bnu thaabit khusaymat bnu thaabit keligiis miya aayaddaas yacni ka warbixiyey inay jirto ilaa qur-aanku wuxuu u baahan yahay tawaatur qur-aanku tawaatur ku sugnaadaahe culimmadu waxay leeyihin marka muxadisiintu waa camalan bitawaatur aladii kaana cinda asaxaaba halkaas saxaabi kaliya looma qabsane waxay ku dhaqmeen tawaatur horeo jiri jiray oo aayaddii markii la soo bixiyey nin walbaa wuxuu yidhi war waan maqli jiray nabigaan ka maqli jiray 100 iyo 200 iyo 10 kuna isku raacday marka tawaaturkaasaa tawaatur hore jiri jiray ayaa loo ictimaaday maana alqur'aanu laa yahbutu bilaaxaad qur-aanku aaxaad kuma sugnaado قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الضيالسي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت هو الأنساري قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت وكوفي عبد الله بن يزيد الكوفي يحدث عن زيد بن ثابت قال وحول زيد بن ثابت لما خرج النبي إلى أحد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أحد مركو أبحي رجع الناس ضد دب إسقى صلابتي ضد كاسو من دول كاملة dadka dib u soo laabtay waa dad uu ra'iis u ahaa ninkii munaafiq ahaa oo la dhihi jiray Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'iisul munaafiqiin ninkaasa dadkii yaani qalbiga ka jabiyay oo markii jabkii iyo waxyaalihii uu arkay muslimiinta ku dhacay wuxuu leeyahay calaama naqtulu anfusana waqad aba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ra'yana
nabiy llaahi maxamedna sala allahu alay wasalam markii hore dagaalka loo soo baxaya taladeyda waa diiday oo asagu wuxuu ka mid ahaa dadkii markii hore yidhi magaalada dhexdeeda aan kula dagaalanno nimankan cadowga magaalada dhexdeeda aan kula dagaalanno marka ra'yigiisa waa la diiday haddii jumhuuru saxaaba sidii hore qisada aan ugu soo qaadanay ayaa waxay qabeen bannaanka in loo baxo oo cadowga bannaanka looga hortago marka wuxuu yidhi anigana markii hore taladeyda waa la diiday meeshaana jab iyo dhibaata ka socotay calaa maa naqtul anfusana maxaan nafteenna marka yacni u dilaynaa 300 iyo dhowr la goostay oo qabiil kuwa ku taageeray iyo kuwa waxyaalo kale ku taageeray iyo meeshii uu garabkii muslimiintu baneeyey garabkii muslimiinta ayuu ninkaasi baneeyey waa marka wuxuu ka rabaa yacni niyad jab dadka muslimiinta ah uu ku niyad jabinayo qaala wuxuu yidhi lamaa kharaja nebiyu sala allahu alayh wasalam ilaa uxud rajaca naasu duulaa dadaa baxay dadkaasu miman ayuu lidikii ka mida kharaja macahu maca rasuulillaah rasuulka ilahi dadkii la soo baxay sala allahu alayh wasalam ka mid wa kaana asxaabu nabiy nabiga asxaabtiisuna sala allahu alayh wasalam waxay ahaadeen firqatayni laba kooxood dadkaas dagaalkii ka siibtay oo ka baxay saxaabadii waa isku khilaafeen laba jamaacay ugu kala jabeen firqatun koox taquulu waxay leedahay nuqaatilum waa la dagaalamaynaa qol waxaynu nimankan niman munaafiqiina waay gaaladii noo nuglaynayaan aan la dagaalano nimankan dagaalka ka baxayo wa firqatun koox kalena taquulu waxay leedahay laa nuqaatilhum fidno kale weeyo cusube annagu gudaheena inaan la dagaalanee lama dagaalamayna hees ka baxaan aanu dayno فنزلت هذه الآية آية سودكتي فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فما محيبا لكم أدينك إذن سقنادي في المنافقين في شأن المنافقين لمن كانوا منافقين ما حد كربتانا لي هس كبحان منافقين واي حتى ينتهي فما محيبا لكم أدينك إذن سقنادي في المنافقين في شأن المنافقين شأن المنافقين تم هاي إذن سقنادي فئتين كنتم واحد هاتين فئتين لبكوا حداد وكلا جبتين niman munaafiqiin oo dagaal ka tegay oo niyad jabin iyo bahdilid iyo waxa ula jeeda ayaad sababtoodii laba koox ugu kala jabteen wallaahu ilaahay yaana arkasahum dib u celiyey arkasahum ilaa kufrihim gaalnimadoodii ha ku sii adkaadaan daaya faajirnimadoodii iyo gaalnimadoodii dib loogu celiyey daaya bimaa kasabuu bisababi kasbihim wixii ay kasbadeen oo macaasidii ay kasbadeen sababteed ayaa ilaahay dib ugu celiyey dulligoodii lagu celiyey dulligooda ka daaya hala hadlinin ha baxaan iyaga is dulleeyo baxaan وقال رسولكم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحيري إنها مقالة مدينة المنورة ضيبة مقعدة مقالة مدينة كمدة هذا والضيبة تنفي أيضا وحي إسكسارتها الذنوب أصحاب الذنوب تتكدم بيدا قال أصحابتي إذا إسكسار يس مقالة مدينة منافق يبلاي يا شيطان بكم نحن ولان كره مدينة إذا إسكسار يس سوق النبي صلى الله عليه وسلم وحي أن تعد وجوجن وإلهي درتيس مقالة المدينة أن وجد المدينة إذا بحنا يسأل مسؤول مقالة المدينة بركات كذا كمت نفحات كذا شيطان مجوي كرو qof ilaahay dartii aan meesha u joogo kuma noolaan karo waati yahuudi oo dhan qabaa'ilkoodii lafahoodii kala duwanaa waati meesha ay ka baxeen oo laga saaray munaafiqiintiina markii dambe waati iyaguna ka baxeen meeshii mid islaamay iyo mid la dilay iyo mid isaga guuray waati noqon waa sida nabigu uu sheegay sallallahu alayhi wasallam barakaadka iyo nafaxaadka madiina waxaa ka mid ah qof ilaahay dartii meesha aan u joogo kuma noolaan karo magaalada madiinada munawwara وقال رسولك صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب تنفي أصحاب الذنوب إلى إسك إرسة كما تنفي النار خبث الفضة naartu siday u eriso khabath alfida fidada wasaqdeeda fidada haddii jeermis iyo wasaq gashaan dab haddii la saaro dabku wixii wasaqda ahayo birta iyo fidada ka shaare isaga dhinac u tuuraya fidadii oo nadiif halka soo dhig uu ku soo saaro ee kala shaandhay marka madiinada iska shaandhaynaysay daayo nabigu sallallahu alayhi wasallam qala imam bukhari rahimahullah ta'ala baabun hada midkan baabu qala ta'ala ilahi wuxuu yiri id waqti xasuusta hamma ta'ifatani laba kooxood ay hamiyeen labadaasoo minkum adinka idin ka mid labada kooxood waa banu salima iyo banu xaarith oo min alansaar ka mid waa banu salima iyo banu xaarithow id waqti xasuusta hamma taa'ifatan laba koox waa banu salima iyo banu xaarith ay hamiyeen labada kooxood oo minkum adinka muslimiinta idin ka mid an tafshala inay fulayoobaan oo munaafiqiintii markii la arkay cabdullahi ibn ubay ibn saluul oo 300 iyo dheeraad la go'ay markii arkeen labadan lafood labadan jilib oo banu salima iyo banu xaarithana waxay dhaheen anaguna aan raacno meesha lagu kala tagay waa u jeedaan dagaalkan waa lagu kala taxay kaligan meesha yana ku baabi'ine anaguna aan iska baxno waa hamiyeen ilaahay wuxuu cabiray idhammat waa ham laakiin aziima kama ahayn ma go'aansan ma aysan bixin qalbiga xogaa waxa ka soo galay ma iska raacno nimanka hamino wallahu ilaahay yaase waliyuhuma labada kooxood ilaaha weligoodii waliyu amrihima arrinkoodii laakiin ilaaha tawaliyo ilaaha sugay qofka ilaahay sugayo sidaas way qofka ilaahay sugayo sidaas way hamigoodii kama run shoogine ilaaha weli u noqday oo xafiday munaafiqiintii ma aysan raacin way sugnaadeen
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف والبيكندي عن ابن عيينة وسفيان بن عيينة عن عمرو وشيخ عيسى عمرو بن دينار المكي عن جابر قال وحول جابر نزلت هذه الآية آية وسودكتي فينا في شأننا أنك شأننا آية وكسودكتي إذ هم طائفتان منكم أن تفشل بني سلمة وبني حارثة labadaas jilibay ku soo degtay oo ma uxibu anuguna ma jecli yuri Jaabir annaha aayadu iyadoo annaga naga sheekaynayso annaga nagu soo degtay aayadu lam tanzil inaysan soo degin ma jecli inay soo degtaan ba ku faraxsanin laana wuxuu ka fiirinaa hal eray oo aayadu ku jira wuxuu yiri wallahu ilaahi yaqulu wuxuu leeyahay wallahu waliyuhuma soo ilaahi nama dhihin ilaahi ku dhahay anaa weli ku ah man qaba lamida ma jirto man qaba iyo amaan lamida ma jirto marka wallahu waliyuhuma soo kuma jirto aayadii bis aba ku faraxsanahay in la canaanto aayadina hadana ilaahi uu ku sheego wallahu waliyuhuma yaa nooga fiican banu salim banu xaaritha hadaan nahay ilaaha baan yiri way ana idin ah weliga arrimihiina tamaninay oo idin nusraynay oo idin gargaaray ana ah ilaahi ma yiri bis soo degtay aayad قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا سفيان مرض عمر قال سفيان بن عيينة لا قتيبة وصامر علامات كيس كاملة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر قال وحر جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحي هل نكحت يا جابر ما قرستي قلت نعم قال رسولك صلى الله عليه وسلم ماذا محد قرستي أبكرا أم ثيبا قلت وحير لا بل ثيبا قرب أيان قرستي قال مركز رسول صلى الله عليه وسلم وحير فهلا جارية تراعيك فهلا تزوجت جارية قبر ما حد يقول سويس قبر داسو تراعيك كلا عيارته قلت وحير يا رسول الله رسولك إلهي إن أبي أباه قتل يوم أحد أحاديث أحد وكربها لفظ ياسو كربها بخاري قتل يوم أحد جابر بن عبد الله أبيه إنه كمدها dadkii ku shahiidoobay intaas uu ka raba Bukhari dadkii ku shahiiday dagaalkii Uhud qultu waxaan ya rasuulka ilaahi in abi abahi qutila wala dil yawm Uhud la dil wa taraka 9 banaat 9 gabdhood una ka tagay abi kunna li 9 kaas gabdhood oo kunna li aniga ii ahaadeen 9 akhawaatin anigana waxay noqdeen 9 walaalahay ah ay noqdeen bakariitu marka waxaan ka haday rasuulka ilaahi oo ana jamac ilayhinna xaqooda inaan u soo jamciyo jaariyatan gabar inaan u soo kulmiyo gabar aan u keeno gabadhaasoo kharqaa ee dhaqan aan aqoon la tacrifu amalan gabar aan dhaqanka waxba ka aqoon inaan u keeno gabadhaasoo mithlahunna gabdhaha lamida gabar yaroo iyaga ku daa oo sida dulqaad iyo guri looga shaqeeyo iyo maamulka gabdhaha sidii loo maamuli lahaa iyo aan xirfadaas aqoonba inaan soo guursado ayaan ka haday rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam ولكن امرأة تزوجت امرأة هوين ينقرسها هوشاس تمشدهن وشن ليس وتقوم ماموشة معنى تدبر يا لولجد تقوم ماموشة عليهن قبلها إيه ماموشة قال رسول صلى الله عليه وسلم أصبت وأصبت تلفي عن ويمر هدي قبر لمدة وكين لها ده واحد دعي كرت مركا قبرنا وين أو يعني خبرة يدو له واحد سمعين يسوع جوري يكون معمول يسوع إنه يسنكرن بحب ماموشة قبر يهدوك جورشن لها جابر مركب مصلحة بورسد رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي سريج والبغدادي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى الكوفي قال حدثنا شيبان والنحوي شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن فراس وفراس بن يحيى الكوفي من بدن سمر الجنوب وليس في البخاري من اسمه فراس إلا هذا فراس وحمد عيسى اللي راه شيخنا وجر جمهران وصل شيخني وفراس بن يحيى الكوفي كتاب النذور سيغنا ونوغي إيمان دوناو كتاب النذور نو كجرا عدنا غزوة الأحد هورنا وانسو قادني بدن سو قادني عن فراس بن يحيى الكوفي عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أباه استشهد يوم أحد أبيه سوحا الشهيد يالي يوم أحد مالنت أحد وترك وانا كتغي أبيه جابر بن عبد الله الأنصاري أبيه وكتغي عليه دينا وكتغي عليه الدشي سحال دينك وهذا أبوه وترك وحو اسكتغي اب 6 بنات روايه هذا ان سو مرني روايه جابر هذا ان سو قادني oo shacbi uu ka warinay waxa ka wari riwaayadu hor Amr ka wariya Amr an Jabir waxay ahayd 9 banaat riwaayatu shacbi an Jabir ayadana waa 6 banaat 6 gabdho culimadu markay waxay ku daawayeen labada riwaayo waxay leeyihiin waxa suurtagal ah 3 mutazawijaat yani 3 gabdhood inay xilligaas guursadeen oo gurigaba aysan joogin oo reer yeesheen هذا سدحدي قبل مركه وايدي هore xisaabtii saddexda gabdhood oo guursaday xisaabtii ku darsatay ilaa 9 ay ku noqon xisaab kor markii la xisaab gabdhaha uu ka tagay 9 ay noqonay laakiin riwaayadan saddexdii maadaama ay guursadeen yani ma soo hadal qaadin leeyahay baahidu waxay ka taagantahay waa 6 guriga joogto saas ku jamciyaan culimadu وترك 6 بنات
ayuu ka tegey 6 gabdhood falamaa xadara markuu soo xaadiruu yidhi jaabir jizaazu nakli timirta goynteedii timirtii markii la goosanayo dadka beeraleyda ah timirtii ay u bislaatay oo la goosanayo timirtii qaala markaasuu wuxuu yidhi jaabir ataytu rasuula allahi rasuulka ilaahi ayaan u imid sala allahu wasalam mubaaraka caleyh waqultu waxaan yidhi qad calimta waad ogaatay rasuulka ilaahi ana waalidii qad istushhida yowma uxud waalidkayga in shahiid laga dhigay maalintii uxud wa taraka daynan kaiiran dayn fara badanna waalidkayga waa ka tegey in uxib waxaan jeclahay an yaraaka alghuramaa dadka daynka aabbahay ku leh inay ku arkaan aan jeclaan lahay wejigaaga aad igu sharaftid rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam guramadu waxaa dhici karta hadday ku arkaan inay xishoodaan oo intaa waa cafin intaasaan cafin intaas waa cafin inay ku yidhaahaan saasaa dhici kartee rasuulka ilahi bal meesha imaad oo noo imaad rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi idhab orodoo tag adigu fabaydir kulmi jamci kulla tamrin calaa naaxiya timir kasta nooc walboo timirta ka mida jiha u kulmi wixii isku noocaba jiha gee wafacaltu waa sameeyey uma dacwatu waa u yeeray rasuulku sala allahu alay wasalam falamaa nadaruu ilayhi rasuulkii markay fiiriyeen oo nimankii quramadii weeye quramadii rasuulka markay fiiriyeen arkeen sala allahu alay wasalam kaannamaa uqruu bi tilka saaca waaba iyadoo kuwiiba laygu booriyeba iyagii oo laygu dirayba bi aniga laygu booriyey tilka saaca waaba sii xanaaqeen waxaad moodaa in la yidhiba markaas yacni sii adkeeya hadalka ku sii adkeeya in la yidhi markay arkeenba hadal adayg meeshii ka bilaabeen falamaa ra'aa maa yasnacuun falamaa ra'aa markuu arkay rasuulku sala allahu alay wasalam maa yasnacuuna quramadu waxay samaynayaan markuu arkay oo hadalka inay adadkaynayaan haddii nabigu barakaadkiisii uu la soo baxay marka barakaadkiisii uu la soo baxay nabigu sala allahu wasalam mubaaraka weligiis hees adkeeyaan weligood hees adkeeyaan qofaan wax u duugnayna meesha ku hariyo falamaa ra'aa markuu arkay maa iladikii yasnacuuna ay samaynayaan adaafa waa wareegay rasuulku sala allahu alay wasalam xowla acdamihaa acdami albayaadir goobaha midii ugu weyninka badneed baydaran min baydarin xagga goobta ugu weyneed 3 maraatin uu saa ugu wareegsaday goobihii weynee oo timirta rasuulku sala allahu alay wasalam uma jalasa calayhi cala albaydar goobtii ugu weyneed dusheedu ku fariistay rasuulku sala allahu alay wasalam uma qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu udcu lii asxaabaka igu yeer asxaabtaada kuwii deynka kugula haw famaa zaala kama zuulin jaabir yakiilu lahum inuu u beegayo xatىa adda allaahu can waalidii amaanatahu ilaa waalidka ilaahay uu ka guday amaanadiisa wa ana ardaa aniguna waxaan baraalli ku ahayba an yuؤadiya allahu amaanata waalidii inuu gudo walaa arjica aanana dib ugu laaban ilaa akhawaatii walaalahay bitamratin hal timir inaanan walaalahay u geyn xataa mar uun ilaahay waalidkay denkiisa iga bixin lahaa taasaa wuxuu yidhi farxad igu ahay fasallama allahu albayaadira kulahaa goobihii o dhan ilaahay waa nabadgeli waa badbaadiyey hal timir in laga qaaday maba u malaynaysidba xataa inii anduru waaba anigoo fiirinayaad moodaa ila albaydari goobtii alladii baydarkaasoo kaana calayhi nebiyu baydarka dushiisa nabigu uu ahaa sala allahu alay wasalam oo nabigu meesha uu fadhiyey kaannahaa timirtii waaba iyadoo kaannahaa baydaradaas goobtaas waaba iyadoo lam tanqus aan nusqaamin tamratan waaxida aan nusqaamin meeshii nabigu uu fariistay sala allahu alay wasalam goobtii nabigu ag fadhiyey hal timir in laga qaaday maba u malaynaysid marka karaamaad nabigu sala allahu alay slam mucjizaadkiisii uu la soo baxay iyo nafaxaadkii u dugnaa uu la soo baxay rasuulku sala allahu wasalam mubaaraka aleh markii nimankii hadalka adkeeyeen qaala imam الbخaarي raximah الlahu taعala xadaثna cabdالعaزيز بn cabd الlahi والmadني qaala xadaثna ibrahim بn sacd aladi yantasib ilى cabdiرaحman بn cawf can abihi can jadihi can sacd bni abi waqaasin qaala wuxuu yihi sacd bn abi waqaas ra'aytu rasuul اllahi salى الlaه alay slam yowma uxud maalintii uxud aan arkay rasuulku salى الlaه alay slam walxaal macahu rasuulka micigiisa salى الlaه alay wasalam rajulaani laba nin ay nabiga micigiisa yihiin salى الlahu alay wasalam labadaa nin oo yuqaatilaani canhu nabiga xaggiisa ka dagaalamaya salى الlahu alيه wasalam oo garabkiisa taaganba oo nabigu salى الlahu alيه wasalam difaacaya dagaalkii gelaya labadaa ninaan arkuu yidhi calayhimaa labadooda nin dushoodana waxaa ahaaday hiyaabun dharkaasoo biidun cadcad ka ashaddi اlqitaali dagaal midka ugu darnaashada badan oo kale dagaalamaya maa ra'aytuhumaa labadaas nin ma arkin qabla hada اlyowm qabla uxud dagaalkaa uxud ka hor ma arkin walaa bacdu bacda uxudna ilma aanan saarin xataa dagaalka uxud ka bacdina waa waaye ka horna ma aanan arki jirin labadaas waxay ahaayeen waa jibriil iyo mikaa'iil malaa'igtii ilaahay u soo diray nabiga salى اllahu wasalam mubaarak calayna garabkiisa ka dagaalamaan riwaayatu muslim fii saxiixi ayaan ku soo qaadanay riwaayatu muslim fii saxiixihi ayaan ku soo qaadanayoo waa jibriil iyo mikaa'iil oo nabiga garabkiisa ka dagaalamayey salى اllahu wasalam mubaarak caleyh dagaalkii uxud
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن المسندي الجعفي قال حدثنا مروان بن معاوية الكوفي قال حدثنا هاشم ابن هاشم السعدي وابن أخي سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص أذير سعد بن وقاص صحابي اللي يجري أي أذير وآدم وهاشم كان هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول مثل لي النبي نبي بحيي صلى الله وسلم وبارك عليه كنانته سهام كنانته nabigu sala allahu alay wasalam qonaxiisii qonax waxaa la yidhaha baasha gamuunada lagu rito oo boorsada oo kale ah boorsada gamuuneedka la yidhahdo nabigu sala allahu alay wasalam kinaanadiisii qonaxiisii qonaxa gamuunadii ku jiray ayuu isoo saaray nabigu sala allahu alay wasalam ikraaman lisacd karaamayn uu sacd nabigu sala allahu alay wasalam wathiqatan biramyihi shiishkiisana waa ku kalsoon yahay shiishkiisana nabigu waa ku kalsoon yahay sala allahu alay wasalam kinaanadiisii khaaska ahayd fallaarihii khaaska ahaa uu yidhi qabso dagaalam yowma uxud فقال مركز وحي رسولك صلى الله عليه وسلم ارمي جن وتور ذاك فرشد هذا أبي وأمي أبهي هو يدي هل وفرته جن قال هذا ماذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن سرهد البصري قال حدثنا يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل عن يحيى بن سعيد لبدي يحيى وحسك قال يحيى بن سعيد الأنساري قاضي يحيى بن سعيد الأنساري المدني يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعدا يقول سعد كان سعد بن أبي وقاص سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد لبديس أبو يكل مي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحد أبهي هو يدي هلو غفرته أبهي هو يدي هلو غفرته وسيد النبي أجعل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه سعد ونكل سونا رمي يسو قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى الأنساري وسجن يحيى بن سعيد الأنساري قاضي المدينة عن ابن المسيب أنه قال سعد بن أبي وقاص وحيري لقد جمع لي النبي ويكل مي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كلاهما لبدو مد والبو كمده يكل مي يريد ولجيدا سعد بن أبي وقاص حين قال مركو النبي يري أي ولجيدا صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي والهال يكل مي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين أسوأ مشركين تلدق على ما يساس النبي يري صلى الله عليه وسلم فداك أي أمي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل بن الدكين الكوفي قال حدثنا مسعر بن كدام الكوفي عن سعد وسعد بن إبراهيم الذي ينتسب إلى عبد الرحمن بن عوف الرجل الشيخ يكون نسبة شيء عن ابن شداد عبد الله بن الشداد بن الهادي الكوفي قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي من مقل صلى الله وسلم وبارك عليه يا جماعة حال النبي أكل منه أبويه لبدي سي أب لأحد قف أكل منه غير سعد ما هنا قف النبي يري صلى الله عليه وسلم أبه هو يدي هلو وفرت سعدا كأركو سيدنا علي ده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يسرت أساس الدين ضد اسمه يسرت قال حدثنا يسرت بن صفوان الدمشقي وليس في البخاري من اسمه يسرت إلا هذا الشيخ شيخنا كده واحد بخاري يسرت حدثنا يسرت بن صفوان الدمشقي وحنا نوي من دونه وكلا كتاب التوحيد نوكو من دونه شيخ يسرت بن صفوان وكلا نوي من دونه تفسير سورة الحجرات إذا نوي من دونه هذا وحنا نوي يمد غزوة أحد وكلا نوي من دونه باب وفاة رسول الله يريد النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه انتاسو أبواب أي بخاري وحقوري يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه الذي ينتصب لعبد الرحمن بن عوف شيخ النسبة الشهير إبراهيم بن سعدي الرجل عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما سمعت النبي من مغل صلى الله وسلم وبارك عليه جمع حال رسولك صلى الله عليه وسلم أبويه لبدي سأبي لأحد ضفنا أكل مي إلا لسعد بن مالك هذا سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص إسكجر أصير نفتي سوى مثل لهم عليهم إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي صورها يا المغلب سعد جن قال هذا جن أبي هو يدهل وفرته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبوذك البصري عن معتمر بن سليمان بن درخان عن أبيه قال زعم أبو عثمان عبد الرحمن النهدي وحو شاكتي أنه شأني لم يبقى إنه سنباق النقن مع النبي معي سأوسن لباق النقن صلى الله وسلم وبارك عليه في تلك تاس لحديدنا أوسن باق النقن تاسو الأيام مالمها الذي كاسو وقت يعني أيام تلقى سفينه بمعنى الوقت الذي كاسو يقاتل فيهن أيام تلحديدي يا الذي من يقرأ
allatii taasaaba fiicnaan lahayd aniga alladii ii qoray marka ta'wiil iyo qajajacay u baahan tahay alladii waxba hadda aniga raaraadinaya ta'wiil hadda ku baadigooda nusqooyinka allatiyaa fiican allatidaasaa fiican أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بالفيرية شرحا إنه ممكن إشارة بعد نسخ جيران قوله في تلك الأيام في رواية غير أبي ذر في بعض تلك الأيام وهو أبين لأن المراد بالبعض يوم أحد وقوله الذي يقاتل فينا في رواية أبي ذر التي أساسه أسرهم وهذا أسرهم هي أساسه أنه شاني لم يبقى مباغ نغن مع النبي معي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه في تلك تاس لحيكم مباغ تاسو الأيام المها التي أيام تاسو تاسو سحن تاسو التي أيام تاسو يقاتل فينا أيام تحديدا ودقالمي أو مشركين ولا دقالمي النبي صلى الله عليه وسلم مباغ نغن غير الضلحة وسعد ماهنه دقالك أحد ضلحة هي سعد بس النبي كوهري صلى الله عليه وسلم غير ذاس مركب وفاعلك لم يبقى مباق النغن مع النبي غير ضلحة وسعد ضلحة وسعد بس مالمها يعني دقالك أحد على وجه ذاه أي قوبتي بكوهري مركي هزيمة يجبك ودعي عن حديثهما وحولج إذا رواه أبو عثمان حديثك وحكوري عن حديثهما لبدو ذن باقي النغن لبدو ذن كوري والضلحة وسعد أيها إيش يقول أيها نفتو أبو عثمان هذا أيها حديثك ذن كوري أيها إيش يقول كليجان ayaa nabiga salى الlaه وsلم وbaarak عalيه markii la kala cararay dagaalkii uxud innaga bisaa nabiga ku harnay salى الlaه عليه وsلم marka riwaayaad kale waxay sheegayaan in dad kale ay jireen riwaayaadka qaar waxay sheegaan 6 qaar waxay yidhaahaan 7 inay soo hareen wuxuu yidhi sheekhu can hadiisihima ووقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر في هذا الحديث قال سليمان فقلت لأبي عثمان وما علمك بذلك ومحاد ku ogaatay sooma gaarin alla weydiiyey Abu Uthman inay labadooda kaliya nabiga ku hareen maxaad ku ogaatay qaala can xadiithima iyaga ii sheegu yiri Uthmaan dhahayo وهذا قد يعكر عليه arrinkan inuu calwiyo i'tiraada dhici karta ما تقدم قريبا في الحديث الخامس أن المقداد كان ممن بقي معه المقداد نفtiisa dadka nabiga ku haru kamid aha صلى الله عليه وسلم riwaayad saasan soo mar laakiin يحتمل waxa suurtagal أن المقداد إنما حضر بعد تلك الجولة wareegaas nabiga صلى الله عليه وسلم meeshii looga kala tegay ka bacdi inuu yimid suurtagal ويحتمل waxa suurtagal أن يكون انفرادهما معه labadan saxaabi waa dalxa iyo sacdi gooni noqoshada nabiga ay la gooni noqdeen ay ku hareen صلى الله عليه وسلم inay ahayd في بعض المقامات meelaha qaar inay ahayd بعض المقامات inay iyaga labadooda bis ay ku hareen qaar kalena ay la joogeen maqaamaadka qaar فقد روى مسلم وحوري من طريق ثابت عن أنس قال أفرد رسول الله ولا قوني ولا ولا تجي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 7 لو قونية تضبوا كباقي نقضي من الأنصار الرواية مسلم ساسي إنه شيء تضبط إنه هرين إيه والرجلين من قريش وكأن المراد بالرجلين دلحة وسعد مركب حد يذكر الرواية ده مركب دلحة سعد بس الصهري إنه لجد حق قريش حق قريش إنه لجد صورة قلب وكأن المراد بالحصر كوبيد المذكور لصور شيء وبسوى لوجد في حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين فكأنه قال وأسوى لم يبقى معه من المهاجرين غير هذين ما المهاجرين لا قريش معه مهاجرين تي لبدان بس يا كهرتي اساس ان لو فسر يا صورة قلب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود البصري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الكوفي عن محمد بن يوسف البيكندي قال سمعت الصائب بن يزيد وصحابي صغير صحابي يروي قال صحبت وحام صاحب لنا عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله تعالى عنهم فما سمعت أحدا منهم أحد إيجا كمذا ممقل أحد كاسو يحدث عن النبي حقيس حديث كشيء صلى الله وسلم وبارك عليه oo sababtay xadiiska uga gaabsadeen Cabdiraxmaan ibn Awf iyo Talha ibn Ubaydillah Miqdaad iyo Sa'd iyo kuwaas oo nabiga xadiis ka sheegay ma aanan arkin uu sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi sababtay uga gaabsadeen waxa way khashiyat al-kadhib ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baraka wa iimaankooda weynaaye ama mar uun ku been sheegtaan ama wax idin ka fakada war aadnan hubin ama nabiga ka sheegtaan sallallahu alayhi wasallam saas uga gaabsadeen xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam illa laakiin wuxuu yiri أني سمعت ضلحا مالين كمغلي يحدث عن يوم أحد سو كشكيني مالين سو مغلي مالين تي أحد النبي ساسو يا لأنه سو دهي هل كاس مرا كمغلي سو حديث نوشي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن أبي شيبة
أخوه أبو بكر بن أبي شيبة ولا الكيسو قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح المكي عن إسماعيل وإسماعيل بن أبي خالد الكوفي عن قيس بن أبي حازم الراوي عن العشرة المبشرين بالجنة قال رأيت وحن أركي يد الدلحة قعنتي دلحان أرك شلا حالي قال شيء وقع بها قعنت وحكو دفاعي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلا رأوا السعودي النبي الجهاديس صلى الله عليه وسلم وقعنت أدقي كان فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي آد أفرتي صلى الله عليه وسلم فلا رأى النبي حقي سكو سعودي وقعنت أدقي ساسا قعنتي سكو تكت عندي سكو قال شيء إيمانك الصحابة محبة أي النبي جعل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو وارث والله سبحانه وتعالى الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله